بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suurat albaqara. waxaa noogu soo dembaysay ama aan ku dhex sugnayn reer bani israa'iil iyo waxyaabihii ay sameeyeen uu rabbi noo tilmaamayay subxaana wa tacaala. waxaa noogu soo dembaysay in la yidhi qaryadan gala, markaad gelaysaanna ka cuna meel allaala meeshaad doontaan ayadoo waasica. albaabka ka gala idinkoo sujuudsan dhahana rabbow dembiga noo dhaaf, in allaala inta dembigiina waan saamaxaynaa, muxsiniintiinnana wanaaggoodaan siyaadinaynaa. ayagiina way beddeleenoo orah bay ku beddeleenoo gurguurasho iyo rabbiyow badar iyo masago nasiibay ku galeen. kadib baan cadaab ku soo dejinay buu dhahay ilaahay xagga kore uga yimid, waana faasiqnimadii ay sameeyeen. waid istasqaa, waxaad xusuusataan haddana id istasqaa, wakhtigii uu roob doonay, wakhtigii uu u waraab doonay muusa, nebi muuse uu u istisqeeyey oo u waraab iyo roob dalbay muusa nebi muuse liqowmihi qoomkiisa. waid istasqaa, wadkuruu xusuusta id istasqaa, wakhti uu waraab dalbay muusa nebi muuse liqowmihi qoomkiisii uu u waraab dalbay. faqulnaa, waxaanu ku nidhi idrib dhufo bicasaaka ushaada alxajara, dhagaxa ku dhufo. dhagax meesha yaalaa markaa loo tilmaamayaa oo la yidhi dhagaxaa ku dhufa ushaada. wuu ku dhuftay. fainfajarad, waxaa ka soo burqaday minhu dhagaxii xaggiisa 12 caynan, 12 ilood oo biyo ah. waayo 12 qolay ka koobnaayeen. qad calima, wuxuu ogaaday kullu unaasin, unaas kastii qabiil walba mashrabahum, makaanu cabitaankoodii, meeshay ka cabi lahaayeen. kuluu cunaanu ku nidhi oo washrabuu caba min risqi illaahi, ilaahay risqigiisa cuna oo caba. walaa tacthaw, ha fasahaadinina fil ardi, arlada dhexdeeda mufsidiina, idinkoo mufsidiin ah kuwa wax fasahaadiya, adduunka ha halaynina. markay tiiha ku jireen waan soo tilmaannay in lagu soo hariyey daruur. haddana markii ay oomeen oo haraadkii ka batay, nebi muuse ayaa istisqa iyo waraab dalab u sameeyey. ilaahay tii buu noo tilmaamayaa. waid istasqaa, wadkuruu xusuusta id istasqaa, wakhtigii uu waraab dalbay muusa nebi muuse uu u waraab doonay liqowmihi qoomkiisii, rabbi uu u baryey in la waraabiyo. faqulna darib bicasaaka alxajara, faqulnaa, waxaanu ku nidhi muusow idrib dhufo bicasaaka ushaada alxajara, dhagaxa ku dhufo. fanfajarat, waa burqaday. waxaa ka soo burqaday minhu dhagaxii xaggiisa 12 caynan, 12 ilood. qad calima kullu unaasin, unaas kasta iyo dad walba wuxuu ogaaday mashrabahum, cabitaankiisa, meeshii iyo makaankuu ka cabi lahaa. kuluu cunaanu ku nidhi washarabuu caba min risqi illaahi, ilaahay risqigiisa. walaa tacthaw, ha ku soconina, ha fasahaadininoo ha halaynina, fil ardi, arlada dhexdeeda mufsidiina, xaalo aatiin kuwii mufsidiin oo wax fasahaadinaya. waid qultum, waxaad xusuusataan haddana wakhti aad dhahdeen yaa muusa, muusow, lan nasbira, annagu ku sabri mayno calaa طacaamin waaxidin, طacaam keligii ah. mar walba annagu manni iyo salwi ma cuni karno, carab beddelashaan u baahannahay. nimcada ilaahay siyeysay u kibrayaan fiiri. waid qultum, wadkuruu xusuusta id wakhti qultum aad dhahdeen yaa muusa, muusow, lan nasbira, ku sabri mayno calaa طacaamin, طacaam ma u adkaysan karna, waaxidin ee keliye. fadcu lanaa, noo tuug rabbaka rabbiga, yukhrij ha noo soo bixiya lanaa annaga mimaa kii xaggii tumbitu alardu, arladu ay dhalinaysay. waxa arladu ay dhaliso dhulka ka soo baxa oo min baqaliha, begelkeedii ah, wa qithaa'iha, qaraheedii ah, wa fuumiha, foonteedii ah, foonteedii markaa ah, wa cadasiha, iyo cadaskeedii,
wa fuumihaa toonteedii ah, wa cadasihaa cadaskeedii iyo digir u-ekaanteedii, waa cadaska baalkii digirta ka yaryar, iyo wa basalihaa basasheeda, diir iyo tuun iyo qare iyo begel iyo digir aan rabnaa dhulka ka soo baxdaa. qaala nebi muuse wuxuu ku yidhi atastabdiluuna ma ku beddel qaadanaysaan oo ma ku beddelanaysiin alladii kii huwa asaga adnaa hooseeyee liitay biladii kii xaggii huwa khayrun khayrka badnaa, midkaan xagga rabbi idinkaga imaanayo oo sixadii caafimaadka leh, tixriga iyo bahalka aan ku jirin, miyaa kii liitay begelka iyo toonta iyo digirtii basashoo bahalladii waxyaabaha ay ku dhex jiraan, kii miyaad ku beddelanaysaan? ihbituu hoobta, war dad khayr leh ma tihiine, misran masar dega baa la yidhi. misradan magaalo unbaa loola jeedaa, fa inna lakum waxaad leedihiin maa sa'altum waxaad weyddiisateeni, wixii aad dalbateen waa laydin siinayaaye ka baxa dhulkan khayrka badan. waduribat waxaa la yeelay calayhim korkooda adillatu dullinimo, waalmaskanatu iyo masaakiintinimo, wabaa'uu waxay la gadoomeenay la laabteen biqadabin carro oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay. daalika arrintuna waxay tahay biannahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna kuwa ku kufriya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa, ahaasho ay ahaayeen kuwa aayaadka alla ku kufriya, wayaqtuluuna iyo layntii ay laynahayeen iyo dilkii ay dileen annebiyiina nebiyaashii bikayri alxaqi xaq la'aan. bikayri alxaqi marka la leeyahay nebi xaq lagu dila maba jiree, waa laysaga adkaynayaa. daalika arrintaa waxay tahay waa bimaa casaw caasiyataankii ay la yimideen cisyaankoodii, iyo wakaanuu ahaashahoodii ay ahaayeen yactaduuna kuwa markaa xadgudba. wixii markaa ay ku xadgudbayeen sababteeda ayaa sidaa markaa loo yeelay. reer bani israa'iil yuu ilaahay tilmaamayaa hadalladoodii waa welina loo sii wadaa. markii mannigii iyo salwigii la siiyey cuntadaa hayinkeed iska diyaarka ahee mar walba asagoo cusub oo freesha uu imaanayo ayay diideen. waid qultum waxaad xusuusataan buu yidhi ilaahay, wadkuruu xusuusta id wakhti qultum aad dhahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira annagu kuma sabri karna calaa طacaamin waaxidin, hal dacaam keliya annagu kuma sabraynee, fadcu lanaa noo tuug anaga rabbaka rabbigaa noo bari, yukhrij lanaa hanoo soo saaro, hanoo dhaliyo anaga hanoo soo bixiyo lanaa anaga mimaa tunbitu alardu waxa dhulku uu bixiyo, waxyaabaha dhulku uu dhaliyo, mimaa tunbitu alardu oo min baqalihaa cagaarkeedii ah. bagal waa wax allaala wixii cagaara, wa qifaa'ihaa qaraheedii ah waa xabxabka, wa fuumihaa toonteedii ah, wa cadasihaa cadaskeedii iyo digir u-ekaanteedii ah, wa basalihaa iyo basasheedaba, iyo wa basalihaa. qaala wuxuu yidhi atastabdiluuna ma ku beddelanaysaan alladii kii huwa adnaa liitay, miyaad ku beddelanaysaan biladii huwa khayrun kii fiicnaa ee khayr ka badnaa. ihbituu misran masar dega, magaalo dega baa la yidhi magaalooyinka ka mid ah, fa inna lakum waxaad leedihiin oo laydin siinayaa maa sa'altum waxaad weyddiisateeni. waduribat waxaa lagu garaacay calayhim korkoodoo la yeelay waaye adillatu dullinimo iyo walmaskanatu masaakiintinimo, ilaa haddee dullii masaakiintinimo ka bixi maayaan. wabaa'uu biqadabin carray la laabteenay la gadoomeen oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay. daalika arrintuna waxay tahay alla uu maskanka iyo dulliga u dul saaray, carrada allana ay dushooda u ahaatay, biannahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna kuwa ku kufriyo ku gaaloobay biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa, iyo wayaqtuluuna dilkii iyo layntii ay laynahayeen annebiyiina nebiyaashii bikayri alxaqi xaq la'aan ay ku dileen. daalika arrintaana waa bimaa casaw cisyaankii ay la yimideeni caasiyitaankoodii, wakaanuu ahaashahoodii ay ahaayeen yactaduuna kuwa markaa ku xadgudba. ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyo waaladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo waannasaara nasaare iyo waasaabi'iina kuwii iishay, waa qole saabi'iin ah, man aamana kii rumeeya billaahi intaasoo dhanba,
qofka inta ilaahay rumeeya subxaana wa tacaala, man aamana billaahi, qofka ilaahay rumeeya, walyowmi alaakhiri, maalinta aakhirana rumeeya, wa camila saalixan, camal fiicanna qabta falahum ajruhum, ajirkooda ayay ku leeyihiin cinda rabbihim, rabbigood agtiisa. walaa khawfun, cabsina calayhim korkooda ma ahaanayo, walaa hum mana ay yaxzanuuna kuwii murgaaya. magac wax ma taro, qoladaasaan ahayna wax ma tarto, firqe hebel iyo jamaaco hebel baan ku jiraana wax ma tartee, iimaan iyo camal saalix iyo maalin aakhiro oo la rumeeya laysku haystaa. waxaad doonto baxsee diinta alla ku dhaqan. ina aladiina kubii aamanuu rumeeyey, waaladiina kubii haaduu yahuudoobay, iyo waalnasaara, nasaara, yahuud iyo nasaara buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, iyo waalnasaara, waalsaabi'iina, waa qolo saabi'iin la yidhaahdoo iishay. man aamana kii rumeeya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri, maalinta dambee aakhiro, wa camila saalixan, camal fiican oo wanaagsanna qabta, falahum ajruhum, kuwaasi ajirkooda bay cinda rabbihim ku leeyihiin. magac inuusan wax qabanayn ayaa meesha laga qaadana. waxaad u dhimatoo difaacdo oo diinta alla ha noqoto, waxaad ku dhaqantood ku faanta, yuusan tol ahaanin, yuusan qabiil ahaanin, yuusan firqo ahaanine, iimaan ku ictizaas oo ku faan. man aamana billaahi walyowmi alaakhiri, haddana wa camila saalixan, camal wanaagsan qabta, falahum ajruhum, ajirkoodu ayay ku leeyihiin cinda rabbihim, walaa khawfun, cabsina calayhim korkooda ma aha, walaa hum yaxzanuuna, kuwa markaa murgaayana ma aha. waid akhadnaa, waxaad xusuusataan haddana wakhti aan qabanay, miihaaqakum ballantiina. wadkuruu xusuusta id wakhti akhadnaa aan qabanay, miihaaqakum ballantiina, waa reer bani israa'iile. warafacnaa, aan kor yeelnay, fawqakum dushiina, attuura, warafacnaa, aan kor qaadnay, fawqakum dushiina, attuura, jabalkii. inta jabalkii la soo qaadaa korkooda la saaray, khuduu, khaataanu ku nidhi, maa aataynaakum, waxaan idin siinaynaa, biquwatin, xoog ku qaata, war firfircoonii ad aday ku qaata, wadkuruu, xusa oo ku dhaqma, maa fiihi, waxa gudihiisa ahaaday, lacallakum, waxaad mudan tihiin, tattaquuna, inaad cabsataane, inaad baqdaan oo cabsataan baad mudan tihiine. waxa kitaabka aan idin siinay ku dhex qoranna xusa oo ku camalfala, lacallakum tattaquuna. uma intaa ka bacdi tawallaytum, waad jeesateen, min bacdi daalika, markaa kadib. falowlaa fadluullaahi, ilaahay fadligiisa hadduusan calaykum korkiina ahaan lahayn, iyo waraxmatuhu, naxariistiisa, lakuntum, waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina, kuwa khasaaray ayaad noqon lahaydeen. laakiin raxmadda ilaahay iyo fadliga ilaahay oo korkiina ahaadaad ku badbaadeen. haddaysan ahaan lahayn, lakuntum min alkhaasiriina, khaasiriintaad ka mid ahaad lahaydeen. walaqad calimtum, waxaad ogaateen, aladiina kubii ictadow xadgudbay, oo minkum idinka mid ah, fi sabti, maalintii sabtiga ku xadgudbay. faqulnaa, waxaanu ku nidhi lahum ayaga, kuunuu ahaada qiradatan, daanyeeryaalo, khaasi'iine, markaa hoogay. qoladan asxaabu sabti la dhahana acraaf bay noogu imaan doontaa. qola badda xeebteeda deggan bay ahaayeenoo lir sabtiga ha ugaarsanina, sabtigii ha ugaarsanina la yidhi. iyo jamcihii ama sabtigii intay shabaq dhigteen, malaygu ka soo buuxsamay la soo baxeen. markaasuu ilaahay lacnaday. qisadoodu halkaasay noogu imaan doontaa. walaqad calimtum aladiina, kuwiina waad ogaateen, ictaduu, xadgudbay, oo minkum idinka mid ah, fi sabti, sabtigii ku xadgudbay. faqulnaa lahum, waxaanu ku nidhi, kuunuu ahaada qiradatan, daanyeeryaalo, khaasi'iina, hoogay. fajacalnaaha, waxaanu ka yeelnay, nakaalan, ciqaabay cuquub ayaan uga dhignay, nakaalo ayaan uga dhignay, limaa bayna yadayha, wixii horteeda ahaadii, wamaa khalfaha, wixii gadaasheeda ahaadayba, iyo wamawcidatan, wacdi iyo waano ayaan uga dhignay, lilmuttaqiina, dadka muttaqiinta ah. nakaal, wax lagu caqli qaato iyo cuquub ayaan uga dhignay, wixii ayaga ka horeeyey, wixii ka dambeeyeyba. waxay ku caqli qaataanna waan uga dhignay dadka muttaqiinta. wamawcidatan, wacdi iyo waano, lilmuttaqiina,
dadka muttaqiinta mawcido u ah say xumaantana uga haraan, xadgudubkana ay u joojiyaan, wuxuu rabbi u diidaynay uga tagaan. waid qaala muusaa liqowmihi, qiso yar baa noo bilaabanayso xilligii nebi muuse dhacday calayhi assalaam. nebi muuse xilligiisaa nin kala dilay, sababtuna waxay ahayd dhaxalkiisii buu lahaa, kadibna wuu dhararsaday. habeennimo intuu u soo miray ayuu dilay ayadoon la ogayn. meydkiisii buu subaxii ku soo kallahay, afmuggii buu qayliyey, uu yidhi alla adeerkay baa la dilay. aad buu u qayliyey, cid kaloo dhaxalka ka lahaydna ma jiray, caqiim buu odaygu ahaa. waxaa la garan waayey qofkii qofka dilay. waxay dhaheen bal nebi muuse u tagoo su'aala yaa dilay qofka, hadduu nebiyay ha idiin sheegee. xaaladdaa markii la marahayay buu ilaahay qisada noo sheegayaa. waid qaala muusa, waxaad xustaa id waqti qaala uu yidhi muusa nebi muuse liqowmihi, qoomkiisii uu ku yidhi ina allaaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin farayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan oo aad qashaan baqaratan sac. lo qala buu yidhi, saca aad qasheen cadkiisana ku dhufta. intaa unbaa laga rabay inay baxaan, saca ugu soo horeeya ay soo qabtaanay gowracaan, cadkiisana ay ku dhuftaan. weliba sayntii inta ugu dambaysuunbaa laga rabay. xaaladdaa maysan samaynine an tadbaxuu baqara markuu yidhi, qaaluu waxay dhaheen, ilaan waa dad dhib badan saan soo tilmaannaye, atattakhidunaa huswan, ma nagu jeesjeesaysaa muusow? atattakhidunaa, ma waxaad naga samaysanaysaan huswan jeesjees? caqligaagu waa see waaye macnaha nin dhan oo nebi ahaa tahay, waan kuu nimid nin baa nala ka dilaan ku dhahnay, sac gowraca war miya? atattakhidunaa huswan? qaala wuxuu yidhi nebi muuse, acuudu billaahi, ilaahay baan ka magan galay, an akuuna inaan ahaado min aljaahiliin, inaan jaahiliinta ka mid noqdaan alla ka magan galay. waayo qof yasaayoo ku jeesjeesaayoo caynayoo liiday haddaad aragta waa jaahil murakabun qiimo lahayn. saa darteed inaan jaahiliinta ka mid noqdo ilaahay baan ka magan galay. qaaluu waxay dhaheen, udcu bari lanaa anaga rabbaka rabbiga. qaalu udcu lanaa rabbaka, rabbigaa noo tug waayahe, yubayin ha caddeeya lanaa anaga maa hiya waxay tahay. lo'du say u taalaa, tu hadda la dhalay miya, tu weyn miya, tu gabowday miya, tu dhexdhexaada miya? yubayin lanaa maa hiya waxay tahay ha noo caddeeye. qaala nebi muuse wuxuu yidhi, innahu alla yaquulu wuxuu idin leeyahay, innahaa ayadu baqaratun waa sac ama lo, laa faaridun aan gaboobin, faarid iyo mid weynaatoo duqa aan ahayn, walaa bikrun tu bikra ah oo yarna aan ahayn, cawaanun inay tahay mid u dhaxaysa bayna daalika taabaynkeeda, faaridka iyo bikrada mid u dhaxaysa inay ahaato bayna daalika. fafcaluu fala oo sameeya maa tu'maruuna waxa laydin amraayo, warbaxoo waxa laydinsa amraayo sameeya. waa inaysan noqon sac gabowdoo weyn, inay noqon mid bikrahoo yar, waa inay qaalin ahaato u dhaxaysa faaridkii bikrada. ordahoo fafcaluu sameeya maa tu'maruuna waxa laydin faraayo. maa tu'maruuna. qaaluu udcu lanaa rabbaka, qaaluu waxay dhaheen, udcu tug lanaa anaga rabbaka rabbigaa, yubayin ha noo caddeeya lanaa anaga maa lownuhaa kalarkeeda, midabkeeda suu u yaalaa. taa garanaya ma caddaan baa, ma sac guduud baa, ma sac madow baa, say u taalaa? yubayin lanaa maa lownuha, lownkeeda iyo midabkeedu waa sidee? qaala wuxuu yidhi nebi muuse, innahu alla yaquulu wuxuu idin leeyahuu idin odhanayaa, innahaa ayadoo baqaratun waa lo, safraa'un jaallo ah, safri ahoo midabka boorboorkoo ciidoo kale markaa leh, faaqicun uu daran yahay lownuhaa midabkeeda, kalarkeedana uu faaqic yahay, shadiid yahay. safraheeda iyo jaallanimadeedu ay faaqic tahayay shadiid tahay, tasuru farxad gelinaysaa oo soo jiidanaysaa annaadiriina dadka wax eegaya. dadka marka wax fiiriya saa ay u fiiriyaan, hashac allay lehe tan waayo sac fiican dhahaya, waa inay noocaa noqotaa. way baxeen haddana way soo laabteen. qaaluu waxay dhaheen, udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo bari haddana, yubayin ha noo caddeeya lanaa anaga maahiya waxay tahay. ileen lu'uhu way badan yihiin, tubaa dhulka beerta lagu falaa, tubaa biyo lagu dhaansadaa, waa tee yubayin lanaa maahiya. waayo ina albaqara lu'uhu
tashaabaha calaynaa waa sukay shaabaheen waa sukaya ekaadeene tee waaye wa inna anaguna in shaa allah ilaahay haddii uu yidhaahda lamuhtaduuna kuwa ku hanuunayaanu nahay. qaala wuxuu yidhi nebi muuse innahu yaquulu alla wuxuu idin leeyahay innahaa ayadoo baqaratun waa sac laa daluulun aan la dulaysnin mid la dulaystay oo wax lagu qabsaday aan ahaynoo tufiiru alarda arla caragadinteeda lagu duleeyey inaysan ahayn, mid dhulka lagu caragadiyey, walaa tasqi alxarfa mid beer lagu waraabiyeyna aan ahayn, musallamatun inay tahay tu nabad gashay, shaqo iyo wax dhanba ka nabad gashoo sidii loo dhalay u kobacdo u weynaatay, laa shiyata fiiha hal barna aysan gudaheeda ku aalin, dhibic bar ah waa inaysan lahayn. qaaluu waxay dhaheen al'aana haddaad ji'ta bilxaqi xaqii la timid, fadabaxuuhaa kolkaasay gowraceen, waxaal maa kaaduu aysan sigin yafcaluuna inay sameeyaan. kuwa fali lahaa uma ekeen wamaa kaaduu maysan sigin yafcaluun. marka la fiiriyo say su'aasha u badiyeen iyo say wax u weyddiiyeen dad samaynahaya uma ekeen macnaha. al'aana ji'ta bilxaqi haddaad xaqii la timid bay dhaheen. saci waa lagu adkeeyey, ayagaa su'aasha adkeeyey. saa darteed su'aalaha faraha badan ma fiicna. waxaa aad iyo aad u wanaagsan waxa qofka marka la amro isla markii inuu sameeyo. markii dambaa sac macduum ah looga dhigay, way waayeen say u baadigoobayeen. hal wiil bay ka heleen balil ama islaan, sacaa bay ka heleen maqaarkiisa in la eg oo dahab ah ayaana markaa laga siiyey. laakiin markii la yidhi sac gowraca hadday dhaqaaqi lahaayeen, moorada ugu soo horaysa saca ku jira intay la soo baxaanay gowracaan intabaa ka kaafin lahayd. markay adkeeyeen baa lagu adkeeyey, laa shiyata fiiha wax bar ah waa inaysan ku aalin baa la yidhi. qaaluu al'aana ji'ta bilxaqi fadabaxuuha way gowraceen, wamaa kaaduu yafcaluuna ayagoon san sigin inay falaan. waid qultum qisadii bilowgeedaa gadaal la keenay. wadkuruu xusuusta id waqti qataltum aad disheen nafsan naf oo fadaara'tum aad ku doodeen oo la ogaan waayey fiiha gudaheeda qofkii dilay. wallaahu ilaahayna mukhrijun uu ahaa kii soo bixinaya maa kii kuntum aad ahaydeen taktumuuna kuwa markaa qariya. faqulnaa waxaanu ku nidhi idribuuhu ku dhufta, idribuu dhuftahu qatiilkii la dilay bibacdihaa saca gobolkiisii, asagoo dhan maba loo baahnaynba. saynta ama gobol ka mida intay soo qaataanoo qatiilkii meydkii la dilay ay ku dhuftaan keliya la rabay. sidii bay sameeyeen. faqulna idribuuhu bibacdihaa saci cadkiisa ku dhuftaanu ku nidhi. way ku dhufteen isla markii wuu soo noolaaday. hebel hebel baa i dilay buu yidhi, wuuna xijaabtay. kadaalika saasuu yuxyi allaahu alla u soo nooleeyaa almowtaa waxa dhinta saasuu alla u soo bixiyaa. wayuriikum wuxuu idin tusin aayaatihi aayaadkiisana alla waa idin tusinayaa. lacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad caqli qaadataan. war inaad garataan bacfi inuu jiro, inaad garataan awoodda alla subxaana wa tacaala, inaad ku dhaqantaan amarka alla subxaana wa tacaala. wayuriikum aayaatihi aayaadkiisana alla wuu idin tusayaa. lacallakum si aad tacqiluuna u caqli qaadataan. lacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna. uma intaa kadib qasad waxaa qallashay quluubukum quluubtiinna min bacdi daalika markaa kadib, ayagoo aayaadkaa cadcadka ah mucjizooyinkaa xoogga badan ay arkeen kadib bay quluubtoodii qallashay. min bacdi daalika fahiya waxay ahaatay quluubtii kalxijaarati sidii dhagxaan oo kale, ow ashaddu qaswa ama ka daran xagga qalaylka. dhagxaanta iyo qalbigooda marka la fiiriyo qalbigaaba jilcanba, dhagaxaaba jilcan buu ilaahay tilmaamayaa. fahiya kalxijaara dhagxaantu waa maadooyinka ugu adag oo kale noqdeen. ow ashaddu ama si ka daranba dhagxaanta qaswatan xagga qalaylka. ow ashaddu qaswa. wa ina min alxijaarati waayo dhagxaanta waxaa ka mid ah lamaa mid yatafajaru uu ka soo burqado minhu xaggiisa alanhaaru webiyaalkan biyaha soo qubahaya ee etoobiya markaad fiiriso kor aad aragto meesha biyuhu ay ka soo baxayn waa dhagxaan dhexdooda.
idan dhagxaanta qaar baaba biyo ka soo burqada. wa inna min alxijaarati dhagxaanta waxaa ka mid ah lamaa mid yatafajaru uu ka soo burqado minhu xaggiisa alanhaaru webiyaalka. wa inna minhaa waxaa ka mid ah lamaa mid yashaqaqu jeexjeexma fayakhruju minhu almaa ka bacdina biyahu ka soo baxa xaggiisa. dhagaxii aanu hadda soo marnay nebi muuse intuu u istisqeeyey qoomkiisii aan ku dhiniri usha ku dhufo ka bacdina biyaha ka soo burqada. quluubtii ma laha, way qalaleen, way engegeen, ma ooyaan, ma qushuucaan, rabbi ma caabudaan. dhagxaantiina fiiri, lamaa yashaqaqu mid jeexjeexmahaya oo fayakhruju minhu almaa biyo xaggiisa uu ka soo baxo. wa inna minhaa waxaa ka mid ah lamaa mid yahbitu hoobanaya ka soo dhacaya meel sare min khashyati illaahi cabsi ilaahay darteed. dhagaxa qaar baa soo foqoo dhulka ku soo dhaca. dhagax baa soo dhacaanu iska leenahay, xagguu ka soo dhacay cabsi allah soo riday subxaana wa tacaala. low anzalnaa hada alqur'aan calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaah. qur'aanku haddaan ku soo dejin lahayn jabal korkeeda, jabashiyo qushuucan oo go'go'aysad arkileed buu dhaha ilaahay cabsi ilaahay darteed. wa inna minha dhagxaanta waxaa ka mid ah lamaa mid yahbitu hoobanayo soo dhacaya min khashyati illaahi cabsi ilaahay darteed. wama allaahu ilaahayna ma ahaanin bikaafilin mid ilowsan camaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan, waxaad samaynaysaan. ilaahay haafilka ma aha, ilaahay ma ilowsanee ogaada, digtoonaada oo amarka alla fuliya, digtoonaadoo wax badan wanaaggii khayrka ku socda. ilaahay haafil kama aha, mana ilowsano waxaad samaynaysaan, waana idinka abaalmarina, waana idinla xisaabtamaya subxaana wa tacaala. xaaladdaa markaa ogaada. uma kadib qasad quluubukum quluubtiinnii baa qalashay min bacdi daalika markaa kadib. fahiya waxay ahaatay kalxijaarati sidii dhagxaan oo kale, ow amase ashaddu ka daran qaswatan xagga qaleylka dhagxaanta. wa inna min alxijaarati dhagxaanta lamaa waxaa ka mid ah mid yatafajaru burqada minhu xaggiisa lanharoobiyaalka. wa inna minhaa waxaa ka mid ah lamaa mid yashaqaqu jeexjeexmoo fayakhruju uu ka soo baxo minhu xaggiisa almaa'u biyaha. wa inna minhaa dhagxaantii waxaa ka mid ah lamaa mid yahbitu hoobanaya dhacaya min khashyati illaahi cabsi ilaahay la soo hoobanaya. cabsi ilaahay buu la soo dhacayaa, waa dhagax khushuuc dartii buu la soo dhacayaa. cabsi ilaahay baa soo ridaysaa, dhagxaanta taabaa ku jirta. ilaa ay dhaheen markaan baaba'na maa ilaahayna soo bixinaya. qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum baa lagu yidhi. dhagxaan noqda ama birar noqda ama khalqi ka adag noqda. mima fii suduurikum fasayaquuluuna man yuciiduna, waxay ku odhanayaan yaana soo celinaya. qul iladii fatarakum awala mara, waxaad ku dhahdaa macbuudkii markii hore idin abuuray ayaa idin soo celinaya. maxay samaynayaan? fasayunqiduuna ilayka ru'uusahum, madaxay kuu gelgelayaan, madaxay ruxruxayaan. wayaquuluuna mataahu, goormay bay ku leeyihiin? qul casaa yakuuna qariiba, inay dhowdahay baa laga yaabaa dheh. wa inna minhaa dhagxaanta lamaa mid baa ka mid ah yahbitu hoobanayo soo dhacaya min khashyati illaahi cabsi ilaahay la soo hoobanayee la soo dhacaya. wama allaahu ilaahayna ma ahaanin bikaafilin mid haafil ka ah oo ilowsan camaa tacmaluuna waxaad camal ahaan u qabanaysaan, waxaad samaynaysaan. ilaahay haafil kama aha, cabsina way ku jirtaa, rajana way ku jirtaa. intaa dambe cabsi waxay ku abuuraysaa qof kastoo waxa uu samaynayo qarsada, xumaanna ay markaa tahay. ogow baa la leeyahay ilaahay haafil kamaa waxaad samaynaysid. waxay rajo ugu jirtaa qofka wanaagga samaynayee qarsanayee aan la ogayn, asagana waxaa la leeyahay kaama dayacna, kaama hallowsana, kaa dhumi mayso, ilaahay baa kuu og. wama allaahu bikaafilin ilaahayna ma aha mid haafil ka ah camaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan. wa inna minhaa dhagxaantii waxaa ka mid ah lamaa mid yahbitu hoobanayo qubanayo dhacaaya min khashyati illaahi cabsi ilaahay darteed la soo dhacaaya. cabsi ilaahay dartii buu la soo dhacayaa. wama allaahu ilaahayna ma aha bikaafilin haafil mid ka ah camaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan. afa tadmacuuna an yu'minuu lakum. wabillaahi tawfiiq, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.